Soomaaliya qalalaasaha ka taagan hadday tahay arrimaha Al-Shabaab dib u heshiisiinta Soomaaliya waxaan ognahay in Soomaaliya ay hadda yeelatay madaxweyne cusub madaxweyne khibrad u leh 4 sano oo hore u soo maamulayay 4 sano ama 5 sano oo kale oo uu dusha ka eegayay madaxweyne kale oo xilka kaga dambeeyay oo arrimaha dhacaya oo dhan uu la socday haddaba in Soomaaliya dib loo heshiisiyo khibrad intee leeg ayuu u leeyahay madaxweynaha Soomaaliya ee 4 sano ee cusub la doortay Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu khibrad badan u leeyahay arrimaha Soomaaliya waana ninka ugu odaysan ee la oran karo dib u heshiisiin dhab ah ama Google uu dhigi karaa u dhaxaysa Soomaaliya oo dhan haddii aan ku horeyno qaybta ugu murgan oo ah arrimaha yaala Muqdisho siyaasiga Soomaaliga ah ee jooga Muqdisho inta badan ama boqolkiiba 90 siyaasiyiintu ama siyaasiyiinta Soomaalida waxay aad u daneeyaan dan iyaga gaar u ah waana taata keenaysa in madaxweynaha Soomaaliya dadka ka agdhow ayaan marnaba kula talinin in Al-Shabaab Google la dhigto oo la heshiin karo bal in ay dadkaas ka dhigayaan Al-Shabaab balaayo cirka ka soo dhacday waan ognahay Al-Shabaab dadka ah waa Soomaali waa muslimiin waa dad dhulka kula leh xaqiiqada in la iska indhatiro waa dambi sidoo kalena waxba ma keeni doonto weligeed in been la isku sheego in been umada loo sheego adduunkana been loo sheego dadkoo dhan way ka dhargi beentaada iyo noocaad u samaysan tahay bilaadanka tahay dabcan Al-Shabaab qaybo ka mid ah Soomaaliya way maamulaan qacanta ayna ku hayaan inta rabashaduhu ka socdaan marka laga yimaado ee ay markaas kulaalayaan iyo sidoo kale ciidamadan shisheeye ee goobtan jooga Soomaaliya ciidamada jooga yacni wax ay qabtaan lama yaqaano maxay u joogaan maxay sameynayaan dan ay leeyihiin bas intaas ay u joogaan mushaar ay ku qaataan balaayin dollar ayaa kaga baxda reer galbeedka lagu sheegayo waxay boqol ka jeclaan lahaayeen Soomaaliya oo heshiisa dabcan dantoodana way ka heli lahaayeen mar walba laakiin Soomaaliya oo heshiisa ayaa iyaga dan u ah dabcan sida ay warbaahintuna faafisay dagaalka lagula jira Al-Shabaab waxa ka hadashay hay'adda ICJ waxay markaas leeyahay waxay sidoo kale ayaa leeyahay ICJ dawladda Soomaaliya kula talinaysa bal in wada hadal lagu dayo hogaamiyaasha Al-Shabaab si loo tijaabiyo suurtagalnimada wada xaajood lala gala Al-Shabaab ninka sidaas qoraya ee ICJ ka tirsan waa reer galbeed طبعاً waan ognahay waa reer galbeed sidoo kale ICJ waxa intaas ku dartay in uu jiro guux ku saabsan gudaha iyo dibadda Soomaaliya oo oranaya in Al-Shabaab wada hadal lala galo dabcan wada Soomaaliya in dad Soomaali heshiin waayaana yacni waa waxaan aqliga gali karin umadu way heshiin xataa waxa heshiiya dad kala diina kala dhaqana kala af ah oo aan shaqo isku lahayn ayaa heshiiya oo ku wada nool dalal aan derisnahay oo Ethiopia ka mid tahay oo Kenya ka mid tahay adduunka kale oo dhan ku wada nool marka aqliga caadiga markuu shaqeeyo maxaa diidaya in Soomaaliya oo Soomaali leedahay oo dad muslimiina is wada garanaya is wada yaqaana in la heshiisiyo heshiiskaas hadduu ka yimaado dibadda ama dad tan gaar ah leh heshiiskaas weligii macno weyn ma yeelan doono xaqiiqadu waa sidaas macno weyn ma yeelan doono dhiiranaanta qofka mas'uulka ah ee la doorto ee madaxweynaha ah ayay ka timaadaa go'aan walba oo la gaari karo isaga ayaa go'aanka iska leh tusaale ahaan dadka ka agdhow madaxweynaha had iyo jeer waxa jira la taliyaal sharci la taliyaal dhinaca aqoonta dhaqaalaha la taliyaal military intaas oo markaasi la taliyaal ayuu leeyahay madaxweynuhu haddii ay dadkaasi leeyihiin dana gaar oo ay leeyihiin dana yacni qalalaasaha ay iyagu dhaqaale ka samaysanayaan oo ay lacag ka samaysanayaan waxa ka galay malahan in la heshiiyo iyo in umada loo tiro dantoodu waa sida lacag loo samaysto oo ay caruurahooga iyo eheladoodana dibadda geystaan halkaana ay dabka ku shidaan oo ay mar walba propaganda ay fidiyaan sheegaan in dagaalku sii socon doono lagula jiro Al-Shabaab dabcan dagaalka lagula jiro kooxda Al-Shabaab wuxuu socday muddo 15 sano ah ciidamada shisheeye ee ajnabiga ah ee Soomaaliya ku suganna hadafka ugu weyn ee u joogan xataa maaha in Al-Shabaab la dagaalamaan waa inay ilaaliyaan dawladda Soomaaliya yacni waxaan aqliga gali karin in ay umada Soomaalidu heshiiso yacni wax hor istaagaya ma laha taa halka iska dhig isla garanay laakiin ciidamada shisheeye ee ku sugan Soomaaliya waxay farageliyeen
sagaashameeyadii markay dhacday dowladda Soomaaliya taa waa la ogyahay maxaa yeelay dalalka Kenya Ethiopia yacni waxay mar horeba ciidamadoodu galeen sagaashameeyadii Soomaaliya gudaheeda markii ay dowladda dhexe Soomaaliya burburtay haddaba ma waxa la waayay hoggaan Soomaaliyeed oo ku dhiirada oo rarkan xooggan ee saaran iska dulqaada sheegana inuu al-shabaab la heshiin doono cid walba oo dood lana uu la heshiin doono si ummadan xal loogu helo dhibaatadana laga saaro haddii ciidamada ajnabiga iska baxaan kooxda al-shabaab iyo dowladda Soomaaliyana Google ay dhigtaan odayaal la isweydaarsato madaxweynuhu arrinka si weyn u galo yacni uu halkaas iska dhigo in uu shisheeyahu yacni haddii aad istiraadi shisheeyaha ama wadamada reer galbeedka ayaa si ku yar arki inaad kooxdan la shaqaysid tusaalahaan yacni in arrimahaas ka dhaadhicaysid ama dadka kula talinaya ay arrinkaas kugu dhiirigeliyaan haddii uu madaxweynaha Soomaaliya uu si waaqic ah u fikro in uu al-shabaab la heshiiyo ayaa wadamada reer galbeedka hadan u ah laakiin wadamada Afrikaanka iyo kuwa jaarka nala atoona dan uguma jirto in al-shabaab la heshiiyo waxay dan ugu jirtaa inuu dagaalku sii socdo Soomaaliyana burburkaas ku sii jirto xal heshiin iyo dib u heshiisiinna meesha laga saaro faragelinta shisheeyuhu had iyo jeer waxay ka timaadaa gudaha dadka guduhu sida ay yihiin ay faragelinta dibaduna tahay haddii dadkaagu ay yihiin dad fitana oo ku fogan inay dantooda ka shaqaystaan sidoo kalena aan warba u hayn waxa la yiraahdo ummad diin dhaqan dhul iyo dal toona dadkaas wax faa'iido ay leeyihiin ma jirto madaxweynaha Soomaaliya waxaan leenahay waxaad leedahay khibrad way aragnimo ah oo ku saabsan dagaalka al-shabaab dib u heshiisiinta Soomaaliya umuraha Soomaaliya intaas ay ku dhex jirtay khibrad ayaad u leedahay in wadamada shisheeyaha aad iska waabin kartid in aadan ka amar qaadan dad shisheeye oo markaasi kugu dhiirigeliya inaad Soomaaliya sidaas aad dagaalkan al-shabaab kula jirtid dib u heshiisiinta waxa la yiraahdana aad ku koobtid kaliya dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda Soomaaliya hadday tahay wada hadalada Soomaaliland iyo Soomaaliya dabcan mar walba Soomaaliland waxay sheegtaa inay diyaar u tahay wada hadal laakiin dhinaca kale aanan ka socon sidoo kale al-shabaab ka dagaalamaya Soomaaliya waxay leedahay ma jiro qof si waaqica noola fadhiista oo nala hadla oo ka yimaada dowladda Soomaaliya marka waa dareemi kartaa mushkiladu inaysan ahayn in aynan bulshada Soomaalida ahayn ee mushkiladu tahay faragelinta ay wadamada shisheeye ku hayaan madaxda Soomaaliya iyo sidoo kale ciidamadan shisheeye ee ku sugan Soomaaliya dhibaatada ay ku hayaan bal in ciidamadaasi ay dhibaato u geystaan dadka shacabka daroon la adeegsado in ay boqolaal qof ama tobanaan qof ay Soomaaliya ku dhintaan sanad walba bil walba maalin walba waxa soo hoogiya baa Soomaali ayaa isku horseegtay haddii uu Xasan Sheekh Maxamuud la yimaado firfircooni ku saabsan gudaha oo ku saabsan in uu al-shabaabna la heshiiyo sidoo kalena uu la heshiiyo maamul goboleedyada sidoo kalena saami qaybsiga iyo cadaaladda la fidiyo wax xumaanaya male haddii aad u fiirsatid dhaqaalaha al-shabaab halkee ka keenaan dabcan waa dad dhulkii kula leh wax soo saar leh sidoo kalena yacni howlahoodu intaas ay kala socdaan dabcan wadamada reer galbeedka ee isleedahay yacni ama si kale u arkaan inaad al-shabaab la heshiisid waxaa ka quman oo iyagana uga wanaagsan dhaqaalahoogana uu ugu kaydsamaya in Soomaaliya heshiisto dhaqaalahan faraha badan ku baxayana ay halkaas ku istaagaan ciidamadan shisheeye ee Burundi iyo Balaayo ee Soomaaliya ku suganna iskaga baxaan in ciidamadaasi ka baxaan iyaga dani ugu jirto ee waxay dani ugu jirtaa in ay sii joogaan oo qalalaasuna sii socdo dhibaataduna sii socoto taasna dadka shacabka ee Soomaaliyeed dan ugu jirto waxay dan ugu jirtaa siyaasiyiinta Muqdisho fadhiya iyo ciidamada shisheeye ee Amisom loo yaqaano ee ugu horeeyaan Ethiopian iyo Kenyan waxaan rajaynaynaa in xalka la gaari doono dadkuna wacyi fara badan heli doonaan dhinac walba madax iyo shacabba. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.